iyadoo maanta guud ahaanba Somaliland looga dareeray xuska 18 May ayaa maanta dadweynaha ku dhaqan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil waxay saakaroornimadii hore u dareereen siday u xusilaan qarannimada Somaliland 18 May dadweynaha ku dhaqan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil oo ku labisan astaanta muuqa dheer calanka Somaliland isla markaana ku dhawaaqaya halku dhigaya ay ku taageerayaan madaxbannaanida Somaliland ayaa wadooyinka waaweyn ee degmada Sheekh waxay ku soo mareen socodyo dhaadheer ay ku marayaan sidoo kale waxaan iyaguna goobta ka maqnay ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo gaada ka ciyaar iyo dowlatus ku soo bandhigay goobaha shaariciyada waaweyn ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ugu dambeyntii dadweynahaas ayaa waxay isugu soo biyo shubteen xaruntii loo asteeyay in looga qodbadayo dadweynaha kala duwan ee degmada Sheekh waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo maamulka degmada Sheekh iyo mas'uuliyiin odayaal iyo waxgarad tiro badan oo dhammaantoodba xusay maalinta qaranka ee 18 May iyo qiimaha ay ku leedahay qof kasta oo u dhashay Jamhuuriyadda Somaliland kulli xafladeenu waa waqti gaaban waqti socod dheer baa la soo galay shacabku waa daalayeen anagoo bacdna way taagan yihiin anoo aad u ixtiraamaya waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bas aad uga soo qayb gasheen waxaan idin faraynaa inaad nabadgelyada ilaalisaan qof waliba uu nabadgelyada ilaaliyo waxaan baa gaaro u diraynaa anagoo isku duuban ka shacab reer Sheekh aan shaqooyinka yaryar ee ka dhacaya gobolka Togdheer dadweynaha walaalaha ah dhibaatadoodu maanta ma aha maalin qaranku difaac qaran ku jiro weeye maalin cadow fog la dagaalamayo oo laga hortagayo weeye waxaan ku baaqaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo la joojiyo wax kasta oo wada hadal iyo xal lagu dhameyn karana lagu dhameeyo ilaahay baa shacabka isu dooray oo meel wada dajiyay waa ab iyo isir iyo abti dad kala maarmaya maaha marka sidii xildhibaankii hore iga horeeyay uu sheegayba waxaan baaqa u jeedinaynaa baaq nabadeed hana la ilaaliyo baan leenahay wax kasta oo dhacay oo deelqaafada iyo wixii dhibaato dhacday inta ka badan maanta qaranku ma dulqaadan karo haloo degnuglaado qofkii qorisita ee dagaalamaya furinta jiida hore gooja cadda looga baahan yahay kufee waxaan leenahay walaalayaal waxaan iyo walaalayaashayo inama dhaqdo isku duubnaanteennii bay wax yeelaysaa arrinta waxaan leenahay arrintaas waa yeelka iyo waxgaradka iyo dhammaan duqaytida ha laga hawlgalo annaguna markaannu xafladda dhammayno golaha iyagu waannu tegaynaa arrintaa nabadgelyada baannu u tegaynaa waannu ka qayb qaadanaynaa maanta waa maalintii xuska qarannimadeenna waa 18 May waa maalintii aynu la soo noqonnay xorriyadeennii aynu luminay markii aynu helnay 26 Juun 1960 isticmaalkii Ingiriiska aynu ka qaadanay waxaynu la midownay walaalaheenna koonfureed kadibna maamul xumo dhib fara badan tacadiye badan oo ay noo geysteen walaalaheenna koonfurtu waxaynu dagaal aynu la galnay dhowr iyo 10 sannadood oo dhiigga loo huray waxaynu mar dambe ku guulaysanay 1991 18 May ayaynu xorriyadeennii dib ula soo noqonnay waxaan inugu buurinayaa in maanta waa maalintii qaranka waa national day-geenna ciidaheennay ka mid tahay dadku si wanaagsan bay u soo abaabuleen in nabadgelyada la ilaaliyo in wanaagga dhexdiinna laga shaqeeyo inay isku duubnaataan inaynu farxaddaa ku ciidno ilaahayna waxaan ka baryayaa in maalmo kale oo kuwan oo kalaa aynu ku kulanno sida ee Jamhuuriyadda Somaliland ee u heegan nabadgelyada iyo difaaca qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa aan kale oo halkan kaga faa'iideysanayaa baaq u dirayaa dadka walaalaha ee shaqaaqada yar dhex martay innaga waxa inaga dhaxeeya sumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo qarannimada aynu ku abtirsanaa waxa kale oo aan duco halkan uga dirayaa dagaalka ka dhacaya gobolka Sool magaalada madaxda Laascaanood in ilaahay dadka walaalahaya iska yaaf garansiiyo oo cadawga nagu soo duulay ee qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ku soo duulay ilaahay naga reebo waxaan leenahay qarannimadayada waa loo dagaalamay meel dheer baa loogu daadagay waxaanu ku xasuusan doonaa geesiyaal badan oo u shahiiday marka ugu horeysa may maqlaysaan reer Sheekh may maqlaysaan anigoo ku hadlaya afka gudida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Saaxil
anigoo ku hadlaya afkii barasaabka gobolka saaxil reer shiikhow may maqlaysaan koobkii qabanqaabada xuska 18 May marka loo eego borotokoolka marka loo eego dadka sida loo soo abaabulay waxa qaaday degmada Shiikh aad iyo aad bay ugu weyn tahay waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah waxaan u salaamayaa mas'uuliyiinta degmada Shiikh oo ugu horeeya gudoomiyaha golaha deegaanka gudidii qabanqaabada maalintan aynu maanta xusaynaa maalin maaha inagu sahlan waa maalin qiimo badan inoogu fadhida dhiig badan baa inooga daatay maal badan baa inooga lumay jihaad badan baynu soo marray hawl adag baynu ku keennay waxaan leenahay maalintii qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland xuskeedu waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad ugu qiimo badan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkiisaba waxaan leenahay soo jeedinaynaa insha Allah tacaala cid kasta oo Soomaaliland ay Soomaalilandnimadu ka dhab tahay waa inay ilaaliso waxa wiiqaya Soomaaliland qarannimadeeda waxa wiiqaya waa in laga ilaaliyo hadday siyaasi tahay hadday dhaqameed tahay hadday culimo tahay hadday aqoonyan tahay hadday wasiirro tahay qof kasta oo Soomaaliland maanta danaynaya waxaan u baahannahay in markaasi qof waliba halkiisa uu ka ilaaliyo wiiqinta Soomaaliland iyo waxyaalaha wiiqaya maantiyo garaadkay maantiyo gadaydii farxad gaar ahaaneed sanad guuradii may mawqaati gawaha dalka goonihiisiyo gees ilaa ka gees kale gobollada dhammaantood geyigeenoo idil calanyahowna guud sudhan saddex midab u gaar tahay maxaan gaajo kuu maray gudcurdame habeennimo maxaan guura kuu galay maxaa hanadya kuu go'ay goblan iyo agoon badan maxaa geesi kugu maqan maaha maalinta faraaruq waa maalin midnimo inaan midnimadeenna muujinno xildhibaankii bartan ka hadlayeyna muhiimaddiisu waxay ahayd inuu ka hadlo qiimaha maalintan ay leedahay ee inuu ka hadlo may ahayn cid gaar ah iyo mataqaanaa tafraaruqu muujiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guud ahaan bulshada reer Shiikh ee soo qabanqaabiyey xafladdan qiimaha leh ee ay ugu horrayso bahda waxbarashadu bahda caafimaadku gudiyada xaafadaha ururada bulshada iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysay waxaan bartan fariin u dirayaa in xafladdeenna 18 May waa 2 cisho maalintii kale waxay ku dhacdaa Jimce oo maalin fasax ah sabtida waa maalin qaran waa fasax dhammaan hay'adaha dawliga ay fasax bay yihiin waa Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Bulsha TV degmada Sheekh